Audio Jungle. Audio Jungle. magaalada Addis Ababa caasimada wadanka Ethiopia waxa kulan kafal ah ku wada qaatay halkaas ku yeeshay hogaamiyaha Somaliland ee Muuse Biixi iyo waliba madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warar lagu kalsoonaan ayaa sheegay in galabta magaalada Addis Ababa caasimada Ethiopia ay ku kulmeen labada hogaamiye ee madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kulankan ayaa waxa soo qaban qabiir wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed wuxuuna ka dhacay xafiiskiisa Addis Ababa kulankan waxa uu ahaa mid u gaar ah labada madaxweyne mana jirto cid ka tirsan wafdiyada labada dhinac oo xaadir ahaa ma kulanka ku sugnaa waxaana la sheegay in kulanka falkafoola labada madaxweyne u qaas ah ay wada qaateen sida wararka xogta aan ku helnay kulankan ayaa waxa uu daba socda saacado kadib markii wasaaraha wadanka Ethiopia casuumad u fidiyay madaxweynaha maamulkaasi Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo talaadadii waa isniintii gaaray halkaasi kulankan waxa uu socday ku dhawaad muddo saacada mana jirto ilaa hadda waxyaabo labada mas'uul isla meel dhigeen ama waxyaabo ay ka wada hadleen inkastoo ay u badan tahay in ay ka wada hadlayeen qodobo muhiim ah ku saabsan labada dhinac ee Somaliland iyo Soomaaliya waana markii ugu horeysay ay kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi ayda dhowr jeer hore wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay guul dareysteen madaxweynaha Somaliland ayaa aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya ayaa aad ugu dhow saaxiib la dawladda Ethiopia marka loo eego hadda xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Ethiopia kala dhaxeeya sidaas la mid ah Somaliland xiriir wanaagsan iyo la leedahay Ethiopia waana sababta keentay in Abiy Ahmed labada hogaamiye ay isku keenay ayna ku kulmaan Addis Ababa bilaa hadda wax badan lagama oga waxa ka soo baxay kulanka ay wada qaateen madaxweynaha Somaliland iyo waliba madaxweyne Farmaajo iyo waxa ay ka wada hadleen toona